بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسنا قيارتا نلا سعوتا وطبانية تضبادا أغسطس سنة كاللباكون إيا شاني لباتان برامجka caawa iyo barrow showna waxaan idinkugu hayaa qodobo aad iyo aad xasaasi ah waxa kamida dawladda Sacuudiga oo ku dhaqaaqday isbedel waaweyn oo lagu sameeyay hay'adaha kala duwan qaarkood ee wadanka kadib culays siyaasadeed oo daaqili ah oo la dareemay Maxamed bin Salman ayaa lagu soo waramayaa inuu ka hortagay daad ballaaran oo ku soo socday taasoo iminka si weyn looga hadalhayo wadamada qaliijka iyo guud ahaanba wadanka Sacuudiga haddaba sidee wax u dhaceen dadka la bedelanaya kamida barnaamijka ayaan caawa ku faaqidi doonaa dhinaca kale qodobadaan idinkugu hayo waxa kamid ah Israa'iil iyo Masar ayaa hadda xaaladdu ka taagan tahay meel culus kadib markii sargaal sare oo ka tirsanaa hay'adda sirdoonka wadanka Masar uu ku dhawaaqay in xilli hore ay gudaha u galeen gudaha nidaamka Israa'iil isla markaana dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan militarigooda iyo waliba dadaalada ay ku raad joogeen Israa'iil ay doonaysa dhulka Falastiiniyiinta inay ku qabsadaan in si weyn loola socday hadda dhaqdhaqaaqyo ayaa ka taagan mixwar Philadelphia oo ah meesha ugu badan ee dooda ugu adag ee Israa'iil iyo Masar ay ka taagan tahay warbixin ayaan idinkaga hayaa oo aan barnaamijka ku dul istaagi doona waxaan sidoo kale eegi doonaa madaxweynaha dawladda Lebanon Joseph Aoun ayaa markii ugu horeysa fariin adag oo u muuqanaysa hanjabaad u diray dalka Iran waxna uu ku yiri fariintaydu waa mid cad ujeedadu waxay tahay faraha kala baxa amniga gudaha ee wadankeena Lebanon taas oo ka dhigan xiisada sii kordhaysa ee kooxda Hezbollah iyo waliba dawladda Lebanon u dhaxaysa ee qorshe u yahay dhamaadka sanadkan in dawladda Beirut ay ku dhaqaaqdo guud ahaanba kooxda xisbiga in laga qaado hubka taas oo ay dawladda Iran hore u diiday dhawaana booqasho uu ku tagay wadankaasi Ali Larijani oo ah ninka amniga qaranka dalka Iran madaxda ka ah sidoo kalena kooxda uu hogaamiyo Naim Qasim ayaa ku dhawaaqday intani ay ka xigaan dagaal iyo waliba in faraha la iskula tago wasiirada kooxda taageersan ee xisbiyada Amal iyo Hezbollah ee Shiicadana waxa ay ka soo horjeesteen tallaabooyinka dawladdu ay ku dhaqaaqayso warbixin ayaan sidoo kale ku gorfayn doonaa inta barnaamijka aan wada joogno inta waxaan sidoo kale eegi doonaa khiyaarta ay nala socotay kooxda Ansarullah ee ka soo jeeda dalka Yemen laakiin loo yaqaan Xuutiga ayaa ku dhawaaqday inay gantaalo ku garaaceen meelo kala duwan oo kamid ah nidaamka Israa'iil tani waxaan uga jawaabaynaa ay leeyihiin dhibaatooyinka loo geysanayo shacabka Falastiiniyiinta xilli xaaladda gobolku ay faraha ka sii